Diet balance waa maxay cunto isku dheelitiran. Cunnada dheeliga tiran waa cunnada jirkaaga siisa nafaqooyinka uu u baahan yahay si uu si sax ah ugu shaqeeyo. Haddaba si aad cunnadaada uga heshid nafaqo habboon waa inaad joogtaysaa inta badan kalooriyaashaada maalinlaha ah sida midhaha cusub, khudradda cusub, digiraha iyo borotiinada. Waa maxay calorie? Calorie waa cabirada qadarka tamarta ku kaydsan cuntada. Jirkaagu wuxuu u isticmaalaa kalooriyada cuntada dhaqdhaqaaqyada sida socodka, fikirka, neefsashada iyo hawlaha kale ee muhiimka ah. Celcelis ahaan qofku waxa uu u baahan yahay inuu cuno qiyaastii 2000 oo kalori maalin kasta si loo ilaaliyo culayska jirka. Qaadashada kaloriga maalinlaha ah ee dadku way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xidhan da'dooda, jinsigooda iyo heerka dhaqdhaqaaqa jirkooda. Raggu guud ahaan waxay u baahan yihiin kaloriyo ka badan dumarka. Dadka jimicsiga sameeyana waxay u baahan yihiin kaloriyo ka badan kuwa aan jimicsan. Tusaalayaashan soo socda ee qaadashada kaloriyada maalinlaha ah waxay ku salaysan yihiin waaxda beeraha Mareykanka USDA. Carruurta da'doodu u dhaxaysa 2 ilaa 8 sano waxay u baahan yihiin 1000 ilaa 1400 oo kalori. Gabdhaha da'doodu u dhaxaysa 9 ilaa 13 sano waxay u baahan yihiin 1400 ilaa 1600 oo kalori. Wiilasha da'doodu u dhaxaysa 9 ilaa 13 sano waxay u baahan yihiin 1600 ilaa 2000 oo kalori. Haweenka firfircoon ee da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 30 sano waxay u baahan yihiin 2400 oo kalori. Haweenka fadhiidka ah ee da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 30 sano waxay u baahan yihiin 1800 ilaa 2000 oo kalori. Ragga firfircoon ee da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 30 sano waxay u baahan yihiin 2800 ilaa 3200 oo kalori. Ragga fadhiidka ah ee da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 30 sano waxay u baahan yihiin 2000 ilaa 2600 oo kalori. Ragga iyo dumarka firfircoon ee ka weyn 30 sano waxay u baahan yihiin 2000 ilaa 3000 oo kalori. Ragga iyo dumarka fadhiidka ee ka weyn 30 sano waxay u baahan yihiin 1600 ilaa 2400 oo kalori. Ilaha kaloriyadaada maalinlaha ah waxay la mid yihiin tirada cuntooyinkaaga aad isticmaasho. Waa inaad xadidaa isticmaalkaaga cuntooyinka kalorigoodu yar yahay ama aan nafaqada badan lahayn. USDA waxa ay ku tilmaantay cuntooyinka kalorigoodu yar yahay sida kalooriyaasha ka yimaada sonkorta iyo dufanka adag sida subagga iyo wixii la mid ah. Sida laga soo xigtay USDA dadka Mareykanka ah waxay cunaan cuntooyinka kalorigoodu yar yahay sida keega, burcadka, buskudada, kackaca, cabitaanada tamarta, cabitaanada midhaha, ice creamka, pizza, cabitaanada isboortiga iyo soodhaha. Maxay tahay sababta cunno dheelitiran ay muhiim u tahay? Cunno dheelitiran ayaa muhiim ah maxaa yeelay xubnahaaga iyo unugyadaadu waxay u baahan yihiin nafaqo habboon si ay si fiican ugu shaqeeyaan. Nafaqa la'aan jirkaagu wuxuu aad ugu nugul yahay cudur, caabuq, daal iyo waxqabadkaaga oo liita. Carruurta cuntadooda liidato ayaa waajahaya khatarta koritaanka iyo dhibaatooyinka korriinka iyo waxqabadka tacliinta oo liita. Sidoo kale, caadooyinka cunto xumadu waxa ay ku sii jiri kartaa inta ka hadhay noloshooda. Heerarka kor u kacaya ee buurnaanta iyo cudurka macaanka ee Mareykanka ayaa ah tusaalooyinka ugu waaweyn ee saamaynta cunno xumada iyo jimicsi la'aanta. Xarunta sayniska ee danaha dadweynaha ayaa soo warinaysa in 4 ka mid ah 10 sababood ee ugu waaweyn ee sababaha geerida Mareykanka ayaa si toos ah u saameynaysa cuntada sida wadne xanuunka, kansarka, faaliga iyo macaanka.